maxaa u sababa in mar walba shacabka ama ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ay dhibaatooyinka noocan oo kala ah ay ku dhacaan khaasatan waqtiyada siyaasiyiintu ay hayaan khaasatan waqtiyada ay siyaasiyiintu sayaan maxay dhibaatooyinka noocan oo kale ugu dhacaan waxaan ku daawan doonaa muuqaalkan gudihiisa insha Allah aan faahfaahinaya laakiin inta ka horeysa fadlan ifulintan aan ka codsanayo كليبكاس مركات انتي ساهر دغيشت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مقعيغو قبيالي عبد الحكيم موسى صحابتا شرفت لك marka hore waxaan ka codsanayaa inaad subscribe share like inta baad igu dhiirigelisaan waayo aniga waa dhiirigelin idinkana wax qiimo ah ay ku taagantahay ma jirto fadlan intaas waa codsiga inaad dhigeysan marjeynaya aan ka gudubno siyaasiyiinta Soomaalidu waxa ay ogaadeen in ay shacabkoodu hayin u yihiin hayin waxa la yiraahdaa yacni awrka in rarka sida fiican u qaada ee tababaran balada marka siyaasiyiinta Soomaalidu waxay ogaadeen in ay dad haystaan sida awrkaas oo kale hayin u ah oo marba waxa ay u sheegaan ku talaabsanaya oo aan kulana xisaabtamahayn waxa mustaqbalkooda ah shacab noocaas bay horta heleen in maanta saan ognahay waxaa ka dhacay Somaliland mudaharaad baa ka dhacay dad baa ku dhintay dadna oo ku dhaawacmeen run ahaantii aniga qabyaaladiid ahaan waxaan qabaa fikirka ah laba nin oo aanu midna danteena wadin marka xaqiiqada loo sheegay masalaxada ay nabadgelyada inuu jirto mooyaane iyo maamulka ay dhisan mooyaane masalaxa kale oo inuu jirta aanay jirin oo aw nin walba uu leeyahay hantida ummadda inuu boobo oo kursiga u imanayo waxa aan ugu kala heelino ee aan ugu dhimanay horta waxa weeyaan waa doqonimo iyo inaga oo aanan ka koreyn maxay hayday bent iyo beenwasnimada ay nooga sheekeynayaan nimanka siyaasiyiinta ah maanta dad baa dhintay dadna way dhaawacmeen already hadalkii wuxuu ku soo dhamaanayaa ilaahay kuwa dhaawacmana ha u boogadhayo intii dhimatayna Allah u naxariisto ogow siyaasigu mowqifkan maanta ay isku yar khilaafsan yihiin marka ay berrito kamaalin miis bay ku wada qadaynayaan miis bay ku wada cashaynayaan hal dhinac bay wada yihiin waxaana loo heshiis yahay oo qandaraas ay ku qaateen shacabka iyo si loo jahawarin laha haddaba waaye inaga hadaynu shacabkii maxaa inaga qaaday garashadii inaynu la xisaabtano ama aynu ku xisaabtano wixii danteena ahaa oo aynu ka korno cadfada imka xukuumadda cid taageersanada bal dib u raac hadaa aragto waa cid qabyaalad ku taageersan mucaaradka sidoo kale hadaa aragto cid taageersan qadiyad kale cid ku taageersan arki maysid laakiin qabyaalad ka ugu fog markaas ee qabyaalad ka madax banaanna waa mid dana shakhsiya sorry dana shakhsiya ku taageeraya buu noqonaya waayahay haddii ay marsaa tahay maxaa markaas xal ah innaga haddaynu nahay shacab mar walba ma waxaynu u rarnaanaa oo heeryuhu inoogu xidhnaanayaan oonu dhimanaynaa u dhaawacmaynaa in aynu caadifad indhala'aan ah innaga oo aan jando kale oo inoo degan aanu jirin ama ujeed kale oo leenahay aanay jirin iyo mustaqbal dambe mar walba ma tolo ayay baanu ku hawlgalaa oo aynu inaguna u dhimanaa dabeetana waa layna taxsiidaynaya run ahaantii siyaasi wax loo kala heeliye ma laha mid run sheegayna ma jirto haba yaraate ku kursi ku fadhiya iyo ku kursi doonaya labada midnaba anu waxaan odhan lahaa wanaanu ka korno oo ruuxna wareer naga daayo nimayaw dalkan sidoo horumar iyo guula uu ku gaari lahaa annagana mustaqbalkayga oo ku dhismi lahaa hadaan nahay khaasatan dhalinyarada nagala hadla buuqiinana xiinkinna haddayna inagu kala hilinin wallahi la iskuma booteeyeen laakiinse iyagu man dhintaan kumana dhaawacmaan gawaadhidooda iska dhex sharaabaan
innagaa ku dhimanna innagaa ku dhaawacana marka saxaafadda soomaaliduna waxaad moodaa inay cid kale u shaqeeyaanoo waxaad arkaysaa mar kasta maanta eg waktigii daahiriyaaloo kale kulmiyay la socdeen oo mucaarad ahaa oo bannaanbaxan doonayay wakhtigaana laga hor taagnaa maanta xisbiyada mucaaradka la socdaan oo kulmiye ay shalay la socdeen bay ka soo horjeedaan muuse biixi shalay daahirayaale wakhtigiisii mudaharaadaduu doonayey ayuu maanta diidayaa berrina waxaan arki doonnaa haddiiba ay dhacdo inuu cabdiraxmaan cere kursigaa fuulo ama mid kaliba oo maantana mudaharaadka doonaya isagoo haddana berri diidan baynu arkaynaa war bilaa caleyk ya akhi markaa maynaan inagu ahayn dad caqli bahaayin baynu nahay maxoolaynu nahay haddaba masiibada qabyaaladdu ay leedahay waxaa ka mid ah in aad dantaadi garan weydo sababta aad ku dhimanaysa aad garan weydo in aad indha la'aan iyo dhegla-aan aad soconayso oo abka aad isku jirtaan keliya aad qofkaas ku xisaabtamaysa ninkaas leh waa markaygii ee kiishka aan buuxsada ii bannee iyo kaygii horeba maan buuxin niman isku haysta oo innaga hantideennii iyaynu welibana u kala hiilinaynaa adduunyada lama arag mujtamac noocan oo kale ah khaasatan soomaalida afrikaanka oo dhan baan la qabnaa laakiinse soomaaliduna ka sii xag jirtaa oo aad baynu daciif ugu nahay taas waxaan odhan lahaa anugu markaas cid aan eedeeyo iyo cid aan taageero toona anu ma arkayaba dee waayo dhammaantood anugu hal baan wada arkaa ku kursi ku fadhiya iyo ku kursi doonaya labadaba mid baanu arkaa waxaan dooran lahaa waa rantideenna aanu ilaashanno khaasatan waddooyinkeenna aynu gubaynana taasaa inooga dhow labada ninbe aynu ilaashanno iyo hantiyaheenni iyo waddooyinkeennaas aynu ilaashanno iyo amnigeennaas aynu ilaashanno nimankanna adeer soo kala baxo annaga idinka oo heshiisa waan aragna aan ku nidhaa oo inoo aamusno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fadlan markaad fideogan aad daawato waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe iyo share iyo like intaba aad igu saacido insha allah